gobolka awdal oo dhan ololaha u diyaargarowga doorashooyinku waxa uu galay wejiyadiisii u dambeeyay isla markaana xaaladda siyaasaddu waxa ay maraysaa meel xasaasiya maanta oo ay kaltanka ololaha doorashada u lahaayeen xisbiga mucaaridka ah ee kulmiye ayaa waxa ay olole ka galeen magaalada Qunujeed wadada hareeraheeda ayaa waxa tubnaa dadweyne aad u tiro badan oo lulayay calanka xisbiga mucaaridka ah ee kulmiye isla markaana u gacan haadinayay wafdiga uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka awdal ee xisbiga markaana ay ku wehelinayeen saraakiil sarsare oo heer gobol iyo heer degmo ah oo xisbigaasi marwada musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga mucaaridka ah ee kulmiye ololahana doorashada ee xisbiga mucaaridka ah ee kulmiye ka galay magaalada Qunujeed iyo sidan loogu soo dhaweeyay ayaa waxa ay leedahay ahmiyad laba dhinac ah oo ay takoowadi tahay in ay ku tusayso sida uu dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland u noqday dal u bislaaday dimuqraadiyadda isla markaana uu xisbi walba goob walba ka gali karayo olole arrinta labaad ee ay ku tusayso ayaa waxa ay tahay in xisbiga mucaaridka ah ee kulmiye uu isku diyaariyay si hufan mar haddii magaalada Qunujeed oo kamid ahayd magaalooyinka ay aadka ugu tiro badan yihiin taageerayaasha xisbiga udub ay ka fuliyeen olole ballaaran isla markaana ka kasbadeen inay taageerayaal badan halkaasi ku sameystaan gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee kulmiye Ibrahim Aadan Qalib oo la hadlayay koox dad ah oo isugu soo baxday goob fagaar ah ayaa u jeediyay khudbad kooban oo carabka ku dhuftay inay Qunujeed markhaati u tahay sida uu dalku isu soo bedelayo Qunujeed si noo soo dhaweysay inuu gobolka awdal hormood ka yahay isbedel doonka maanta Soomaaliland ay ku talaabsanayso ee xisbiga kulmiye ku hogaaminayo waxaad ogtihiin madaxweyne maanta laakiin waxaan leenahay war haddii xukuumaddii madaxda ka ah waxba qaban kari weyday ruug cadaadiga Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo idinkuna codkiina nasiya codkana waxa laga eegi doonaa marka doorashadu insha Allah waana salaamatiin